habeen wanaagsan kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalka goolidii soo gaarayo waxaan hawada idinka leenahay waqtigu haydii wacnaado halkan waxaan u joognaa kala saaridda labada kooxood isbuuca labaad ee horyaalka wadanka Ingiriiska kooxaha Liverpool iyo Crystal Palace ayaa dagaalada ku qaadanaya garoonka Anfield ciyaartan waa mid kamid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan ee horyaalka wadanka Ingiriiska Patrick Vieira ayaa wajahaya Jurgen Klopp Liverpool ayaa wajahaysa Crystal Palace xidiga ugu badan ama xidiga intooda badan ee Afrikaan yihiin ayaa wajahaya kooxda kamida kuwa ugu adag ay adag tahay in la wajaho ama dhibca lagu helo waxayna safar ku yimaadeen garoon ay adag tahay in hal dhibic lagu wadaago naadiga fanaanada guduudan ku ciyaarta macalinkooduna uu yahay Jurgen Klopp ciqaab ayaa halkan ku mudan kartaa marka loo eego shaxda Patrick Vieira saaxiibayaal waxaan idinka la wadaagayaa wax walba ku aadan kulankan isaga haysa Jonas fiican Wilfried Zaha iyo goolaya Zaha Wilfried Zaha Crystal Palace ayaa dhalisay goolkii ugu horeeyay kulanka Liverpool waa lagu bilaabay 30 daqiiqo ugu horeeyay ciyaarta haddii ayna calan ku yeerin ciyaartu waa hal eber Liverpool ayaana laga dhaliyay goolkii ugu horeeyay kulanka ciyaartu waa isbedeshay saaxiibayaal hal gool eber Wilfried Zaha ayaana ka dhaliyay no offside wax offside leeyahay ma jiraan 10kii November 1992 wiilka ku dhashay Abidjan oo Ivory Coast ah 29 jir ayaa shabaqa ku bilaabay kooxda lagu magacaabo Liverpool isagu waxa uu hore ugu soo ciyaaray kooxda Manchester United waqtigana waxa uu ciyaarayaa kooxda lagu magacaabo Crystal Palace waxa uu ku guuleystay xidiga ugu fiican ee daayirka horyaalka Ingiriiska waxa loo magacaabay xidigaha sanadka ama xidiga sanadka horyaalka Ingiriiska waxa la siiyay xidiga ugu fiican markaad eegto bisha ee Premier League ee loo yaqaan LFE ciyaartan 32 daqiiqo saaxiibayaal waa hal gool eber Liverpool ayaana laga horkacaya lagu bilaabay Liverpool biyaha cabayaan markan Liverpool wala biyo cabaal uma yaalo biyo cabaal hal jaar ayay qaateen naadigan lagu magacaabo Palace halka Rose iyo Jalla ay qaateen xidigaha weerarka kooxda Liverpool hala soo qaaday markan kubadda Liverpool Janis ayaa u furan wili sababtoo ah daqiiqadaha dhiman ciyaarta waa kan gadaal ka soo dhisayaan Arnold kubaddeeru soo qaaday James Miller ma gaarin Guti oo iska soo fogay kubaddaasi soo qurux badan Liverpool mar kale helaysa Fabio waa Nicolas Harvey Arnold Elliot gadaal ku xiray Alexander Arnold Nathan Phillips isaga haysa markan Liverpool markan haysato kubadda hal goolana lagu leeyahay waa kan Phillips kubaddeera la soo qaaday diilintay ku jirtaa Luis Diaz cadaadis saaran laakiin aan aragno sida uu xakameeyo saaxiibkiisu gadaal ugu soo celiyay si qurux badan karoosa la qaadi kara waa kan Diaz isaga dadaal badan halkan ka haya oo soo dhaafay mar kale Liverpool Janis heli kara 1-1 Liverpool way heshay goolkii barbara Luis Diaz ayaana shabaqa dul dhigay wonderful goal 1-1 عجيب ما آمني كرتد waxa uu sameeyo ninkan malaha kan hadii uu garoonka ku jiro wax walba ayaad aamini kartaa waxa uu dhaliyay mid kamida goolasha ama goolalka ugu qurxan ee isbuuca labaad ee Premier League xidigii Palace oo dhan ayuu soo jeeray wiilkan oo dhashay 13kii January 1997 25 jir Barankas oo la Guerra oo Colombia ayuu ku dhashay qarankiisu waa Colombia 1.8 mitir 65 kg 2019 waxa uu ku soo biiray Porto
2022 waxa uu ku biiray Liverpool nambarka 23aad ayuu u wataa waana 25 jir oo isbedel fiican ayuu sameeyay ma aamini kartid goolkan xasuuso iyo aamin hadalkan dib u xasuuso haddii aan shaashada hor fadhin kani waa goolka isbuuca kani waa goolka bisha waana u tartamaha goolka sanadka ay Joel Gomez ayaa garoonka ku soo biiray Robertson garoonka laga saaray shaqo ma haysidaa la yiri saaxib ciyaartu waa hal gool Timikas isna ciyaarta ayuu ku soo biiray difaac soo gashtay ninkan gool waa iska imaana uu leeyahay gool waa imaana waa ina difaacaadkeeya saddex bedelusan Gomez aabay Allah muxuu goolahaa wallahi kan indhaha laga maqarsan karo wallahi kan waa cajiib wallahi kan lama aamini karo waxa uu sameeyo Luis Diaz